ونمع محمد غليف وقبل إلمها لقى قاتي قال دعي أوجز بلانتي waxay bisha 10keeda bas waa la bedelo waxa laga dhigay bisha 3deeda waxaan iga codsanay Soomaaliya shalasa ii garb istaagteen maantina ii garb istaagtaan oo ii soo duceysaan kii duceynaayo iyo kii maalkiisa bixinaayo waxa kaliya ugu ajirka badan waa ilmahaas agoonta qofka agoon wax ku sadaqaysto Ilaahay wixiisa u barakeynaya qalbiga saa ii garb istaagteen ama maxkamadda u soo istaagteen waa ku mahadsantihiin meel kasta aad joogtaan waxaan iga codsanayaa maxkamaddii waa la bedelay waqtigii waxa laga dhigay bisha 3deeda maandayda soo socoto waa mahadsantiin dhamaantiin sida ii garb istaagteen ina duceeya sida iigu soo duceysaan qalbigayga Ilaahay waa ii dajiyay qalbigayga wuxuu ii sheegayaa inaan ilmahayga mar labaad dib u soo helay ducada ii duceyseen awgeed waa mahadsantiin thank you saytiri waa nibco balantii waa la bedelay walaalayaal إن شاء الله هذا من يابلس يجوكتا حلال يقدر بكيان نبقى قولي إلا ذا هيد ويقسين وإذا قلبي كذا شلون كسر تجي وأنا كسر دوبي مركا قلبي كذا ويقسين وإذا أنا وأكو كربا بعي مركا قف بسمسي وحول بلهانها دتكي والله ويجوا ذا حناقين بلامي ما دام أن كنسلا يمانه والبا إن شاء الله هذا الرسم كلاودون أسعنا وكاسا إن شاء الله مقالة إنان ماركت اسكو داينو ما دام عيال كلير وويل كيرا والغوسو علي شالينا أنا وحاو قسو تغي إن ويل كدراديس بل هدي لو كينايو لكن ما يدعينا وحالي يري بروسيسكا وراقا لقورو بروسيس غير واي والغوسو علينا بلسا حدا هورا لغاقا بريمكا أركيسيد مركا واحد عادي إني حالي قدبا تميد هذا إن شاء الله قفكي ربا lambarka nibco ha igala soo xiriiro dadkii wax aruuriyeen say gacanta uga saaraan gabadha oo reer Minneapolis ama agagaaraheeda Bonesfield idan Prairie meesha joogtiin walaalayaal diyaaraan nahay inaan soo orodno oo imaano wixii loo aruuriyay saa u qaadno hadda reesin cloud noo yeereen waa cararayna halkaas aadayna insha Allah fadhino ma yaalo lawyer kala caruurtii loo qabanaya maadaama lawyerka haysta uu iyaga ilmihii dhankooda ka dhaadhicinayna anaga inaan qabano mid isagana cadeynaya ilmaha hooyadood inay rabaan waa qarash kale marka insha Allah walaalayaal gaari ma haysato gabadha wax walba waa loo qayilayso insha Allah khayr bay noqonaysaa Ilaahay matqaana dadka xumaanta wadana Ilaahay hanuuni wax kale oo xaq ah tusaan leenahay marka wakaasa gabadha halkaan joogtaa ilmaha jifada halkaan u badan yihiin magaalada ilmaha aad bay u mahadsan yihiin tolka ilmaha aabood ilaa qof walba wuxuu leeyahay family Ilaahay ka abaal mariyo isniintii waxa u badnaa oo yimid waa ilmaha tolkooda ahaayeen Ilaahay jannaha ka waraabiyo maantana isniinta shaqo iyo iskuul cid walba ha ka soo dhaqaaqdo ha timaado maxkamadda ilaa hadda yaabanta waxay dhan nolosheena maana arag marka Soomaalida community inay ilma ka maqan yihiin hal wada ogaado marka insha Allah waxa laga yaabaa miiriyaha magaaladooda inuu yimaado maalinka dhawadkadiisay ahaydeen insha Allah walaal hadalka badin maayo soo duceeya mid baa inii sheegaya tan jirtaa waxay tahay sida babygi ka hadlay babyga oo kale waxa la yiraahdaa waa lagu tusi doonaa afar bariyaha kamid ah ku imaan doonaa naas ku nugsan doontaa ilmahan family-ga way arki doonaan marka waa ku visitation ha taas bay waxaan ku helay ducadiina iyo garb istaagiina mideeda gaaladu wayba yaabeen waxay dhaheen ilmahan inay community dad leeyihiin baa aragnay aad bay ayaga laftirkooda saameyn ugu yeelatay marka waa mahadsantiin thank you saa ii garb istaagteen intii ooyday intii ka xumaatay way mahadsan mardeeda laba teleefankayga hadaa soo wacdaan waxa waa shakhsi kaliya anahay dadkaas oo dhan hadal kuma qancin karo waa dareemi karaa qof beerkiisii maqan yahay qof ayraguna qalbigiisa la taabtaanahay ilmuhu waa ubax qalbiga ka dhaxbaxo marka hadaa qofkii aan teleefanka ka qaban waayo yuus u arkin inaa xumaan uga qaban waayay millions ay soo wacdo marka qofka lala hadlaayana waa hal qof oo qalbigiisu maqan yahay waa ku mahadsantiin yaan la iga xanaaqin hadaan teleefanka mar labaad iniga qaban waayo ama codkayga maqli weydaan maaha inaa xumaan inii qabo waa ni jecelahay walaalaha iyo Soomaaliyeed cilool bay leeyahay aan qabiil u kicin oo aan reer hebel u kicin oo Soomaalinimada ilmaha agoonta aabahood mar labaad dhalayna u garb istaagay waa mahadsantiin thank you